بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والسلام يا دمان شعبك رير سوماليلاند مeel kastay joogaan gaar ahaan taageerayaasha axsaabta mucaaradka iyo saxaafadda madaxa bannaan doorashooyinka markasta waxa mudnaanta leh doorashooyinka dastuuriga ah sidaa darteed ma jirto doorasho ka soo horeyn karta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ah doorasho xeerarkeedii iyo miisaaniyadeediiba diyaar yihiin waqtigeedina aan lagu muransanayn oo aan aqbali karnaa ma jirto ma jiro xeer diyaar ah oo lagu qabto doorashooyinka tooska ah ee ururada iyo axsaabta qaranka suurtagalna ma aha doorasho aanay xeerkeedu dhaqangal ahayn in la qabto doorasho aan saddexda xisbi qaran isku waafaqsanayn cid qaban kartaa ma jirto meel laga qaban karaana ma jiro meel lagu qaban karaana ma jirto qaraar maxkamadeed oo xeer noqon karaana ma jiro dastuurka ayaa waaxyaha qaranka u kala soocay waajibaadkooda xeer dejinta ayuunbaa samayn kartaa xeero lagu garo doorashooyin cid kale oo awooddaas lehina ma jirto xilligan aynu ku jirno ma jiraan asbaabihii xilligan aynu ku jirno muddo kororsi loogu samayn lahaa madaxweynaha ee dastuurku jideeyey doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xilligeedii ugu qabsoomi weyday xilgudasho la'aan iyo badheerku talagal ah oo dhanka madaxweynaha ka yimid suurtagalna ma aha in xilgudasho la'aantaas loogu abaalgudo oo muddo kordhin aan dastuuri ahayn loogu sameeyo waxayse ahayd in arrintaa uu ku muto ciqaab ah maamuska xayuubin ma aqbali doono muddo kordhin aan dastuurka waafaqsanayn ama aan ku iman heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay haddii labadaas la waayo xukuumadda uma aqoonsan doono mid sharci ah 13 Noofambar kadib shacbiga reer Soomaaliland waxaad ka warhaysaan in qaybo ka mid ah bulshada iyo hay'adaha dastuuriga ahi isku dayeen 3 jeer in xal loo helo khilaafka siyaasiga ah ee muddooyinkii dambe oo dhan ka jiray Soomaaliland kuwaasoo ka mid ahaayeen 30 xubnood oo isugu jiray madax dhaqameed iyo culimo gudoomiyeyaasha golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo ugu dambeyn guddigii ganacsatada waaweyn iyo odayaal isxilqaamay kuwaasoo dhammaantood axsaabta mucaaradka ah soo dhaweeyeen aqbaleen talooyinkii ay rabeen in lagu furdaamiyo murankaas hase yeeshee dhammaantood uu fashiliyey madaxweynaha Soomaaliland soo jeedintii ganacsatada ee ahayd in doorashooyinka madaxtooyada ururada iyo axsaabta qaranka la is saaro waxaanu u aragnaa inay tahay xal lagaga bixi karo muranka siyaasiga ee maanta taagan sida darteed waxaanu baarlamaanka Soomaaliland u soo jeedinaynaa in iyaga oo eegaya maslaxadda qaranka inay waajibkooda ka gutaan meel marinta soo jeedinta si madax bannaan oo adeegaysa danta qaranka maadaama ay xukuumadda iyo xisbigeeduba diideen soo jeedintii ganacsatada ee ahayd in la is saaro labada doorasho axsaabta mucaaradka ah waxay taageerayaashooda iyo shacbiga Soomaaliland ku wargelinayaan inay sii wadayaan isu soo baxyadii
silmiga ahaa oo kuwii hore ka abaabul weyn ka baaxad weyn oo socon doona inta xal siyaasi ah la helayo ama doorashada madaxtooyada la qabanayo foolxumo ka weyni ma jirto oo qarankan loo geysto in shacbi aan hubaysnayn oo si soo bax nabadeed oo weliba xukuumaddu fasaxday isugu yimi in la laayo la jirdilo xabadno lala beegsado la xidhxidho isla markaana laga fogeeyo qoysaskoodii iyo eheladoodii waa ka warhayseen hablo yarar baa ku jiray oo tobaneeyo cisho la'aan meelay ku xidhan yihiin xabsiga baki waan salaasadii booqannay waxay nagu qaadatay 12 saacadood oo xidhiidh ah inaan tagno oo ka soo noqonno waxaa maqli jirteen xilligii siyaad barre jeel caan ah oo la yidhaha 20 jirow waa 20 jirow muuse biixi u adeegsanayo inuu ku caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo salaadiinta xaqa ku eedaanta iyo cid kasta oo tidhaahda waar ka daa dalku sidaa ku socon maayo waxaa jeelka aan ugu tagnay suldaan ibraahim suldaan sulub oo ku xidhan waar muusow dalku sidan ku socon maayo ka daa isu soo bixii nabadeed ee qabsoomay 11 August oo noqon doonta maalin la xuso waxaa ku dhintay 7 qof 7 muwaadin waxa bad nool ku dhacday in ka badan 100 qof wax dhakhtar tagay iyo wax aan dhakhtar taginba waxa la xidhxidhay in ku dhow 300 oo muwaadin dhacdada mid la mid Soomaaliya kama dhicin xitaa intii siyaad barre joogay waxaan u soo jeedinaynaa baarlamaanka inay xukuumadda kula xisaabtamaan dhammaan tacadiyada dhacay sharcigana la hor keeno dadkii gaboodfalkaas sameeyey maadaama golaha wakiiladu guddi arrintaa u saaray oo ay tahay in si daahfuran loo soo bandhigo guddigaa shacbiguna wuu sugayaa beesha caalamkuna way sugaysaa shalay waxaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi la kulmay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka waxa uu faray fariin uu leeyahay waxaad hor qabanaysaan doorashada ururada iyo ahzaabta qaranka waxay ahayd faragelin qaawan komishanka qaranka waxa uu muuse biixi u dhiibay imtixaankii ugu horreeyey komishanku laba midkood bay noqon doonaan kuwa qaata amarka guddoomiyaha kulmiye iyo kuwa waajibaadkooda iyo xilgudashadoodaba u raaca shuruucda dalka iyo xeerarka dhaqangalka ah kuna taagnaada dhexdhexaadnimada ay kitaabka eebbe gacanta u saareen inay garsoor dhexdhexaad u noqonayaan ahzaabta qaranka waxaan leeyahay ilaahay imtixaanka ah haydii fududay weli waxaa socda caburintii hadidaadii iyo cagajuglayntii saxaafadda madaxa bannaan lagu waday intii muuse biixi xilka qabtay 2 bilood ka hor waxaa la aamusiiyey idaacaddii BBC-da laanteedii afka Soomaaliga usbuuciyo ka hor waxa ganaaxaanay qaadi kara in la dul dhigay telefishinka MMTV shalayna way xukuumaddu soo saartay amar aan maxkamad ka soo bixin oo u muuqday in wasiiro gaar ahi ay beegsanayaan telefishinka madaxa bannaan ee CBA arrintani maaha ugu waxayse ku biiri doontaa tacadiyadii xukuumadda muuse biixi saxaafadda madaxa bannaan u geysanaysay ee tirabeelka ahayd muuse biixi
ما احترام دستور كقرنك يحررك منا إنك استو مركز كسوع العليو شرع بان كتاجنا وحاسو شيء دينية إنه الشرع جاي دستور كسوع النقضة سؤال هذا علات قلت له يوم مرميس الروج اللي عول لجور رأيان كي هلك الله رياقي راليدي وعنيدي ورالي جلسة تمركي ورانيا بروفيشنال بيوتي هير ستايل تيجين ويكون رالي جرولو أبوات رياقي رانيا برسو عرقتي ما كورونا ركبات بروح رياقا كله رسيلي رانيا هنوغان وجيغا قديه يدهال كيس نور كله في تمين الدورة رانيا كيليسا برشادة قرحينتا ينفقينتا شركة تيمها دجيه taasoo ay duruusana ku sii degto khabiir muddo badan dalka dibadiisa wax ka soo dhigaysay waxa uu ku yaalaa iridda galbeed ee laga soo galo suuqa Goobnimo gaar ahaan ka soo jeedka kaabada xisbiga ee Goobnimo wixii faahfaahinta dheer waxay kala xiriiraan telefoonada shaashada idinka muuqda